la qabtay marka oo lagu qabtay magaalada Garbo 1992 bishii January kowdeedii ayaa la qabtay halkaasaan isugu tagnay aad shirkaas inuusan qabsoomin Tigreeg way u carqaladeeyeen shirka waxaa ka soo qayb galay dhammaan gobolada ogaadeen oo dhan shirkii wuxuu noo socday marka muddo 7 waxaa halkaa lagu dhisay for the first time golihii dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya guddoonkeedii ayaa halkaa lagu sameeyey xilligaa markay dhacday marka doorashadaasi shirkii shacbigii baa la dhammaaday shirkii shacbigii baan kala dirnay waxaa la yidhi golaha dhexe ha soo hadho si barnaamijkii iyo qorshayaalkii loo sameeyo barnaamijkii iyo qorshayaalkii shirkii golaha dhexe uu fadhiyo weli qof ka bixin ayay Tigreegu markii hore waxay isku wadeen oo iyaga fikirkoodu ahaa in ay sameeyaan khilaaf inuu meesha ka dhaco shirku uusan imanin waxyaalo aan yara dareemaynin oo kale oo xataa kala reebkii dadkii aan rabin inuu ka soo qayb gala ay qayballo ku yeesheen waxoogaayo ay aad inay carqaladeeyaan damceen logisticadii iyo mataqaanaa waxyaalihii dhaqaalihii la rabay shirka inay ku kaalmeeyeen xanimeen waxyaalo badan inuusan shirku soconaynin bay ku talagaleen laakiin si la yaab leh oo aan caadi ahayn buu shirka u dhacay waxaa dhacday markaa inay yidhaahdeen aan burburino inta ayna meel gaadhin 25 January marka isaga oo shirkii aan weli u fadhino oo wada tashiga weli ku jirno ee ciidankeeni oo gargoon buuntadeeda joogay heshiiska waaga aan Tigreega wada galay waxaa kamid ahaa okay oo jabhadihii oo dhan mar ay wada lahaayeen oo ciidamo aad fara badan bay OLF lahayd qoladii IG oo marka iyaduna mataqaana reedir dhabiyana ciidan bay lahaayeen qowmiyadkoo dhan ma wada lahaa wixii soo dagaalamayay laakiin OLF too kaleeto dee waxay haysteen ciidan aad fara badan maxaa yeelay ciidamadii dargigay ahaayeen hubkoodii iyo taangigoodii iyo waxoodii iyo intooda oo dhan qowmiyadoodii iyo ururkoodii bay kula biireen marka iyagu xoog waxayba ahaayeen taangiyadii iyo yani everything oo ciidan military uu lahaay oo dhan baa meesha ay ku haysteen laakiin inagu dee wax dhaxala kamaynaan helin dowladda burburkeeda waxyaalaha yaab kale waxaa kamid ah dargigii markuu burburay ciidamadii dargiga ee meesha ku hadhay xeryaha oo dabkii ka go-ay oo isgaarsiintii ka go'day qof Soomaaliya markuu soo dhawaado xabad bay ka horgeyn jireen allahumma mid intuu soo dhunta hal qori iyo tuuga iyo mataqaanaa saa kaaga gada mooyeen qof Soomaali xeryahoodina soo gala way diideen war waa sida waa adduunka burburay dowlad baa imanaysa ciidanka imanaya yaa la sugaynaa hubka u dhibaynaa waxaa soo galay magaalooyinkii iyagoo hal baabuur oo kuwa joof leh oo dabaqa qaawan oo jabhadii Tigreega iyo in Eritrea oo gacanta ku haysan yimaadeen kuwaasay hubka u tirinayeen ciidamadii iyo saldhigyadii dhammaa intaas ciidan iyo hubka u tirinayeen laana waxa weeye iyagana waxay u arkayeen dee qowmiyadoodii Ethiopia iyo dowladooda u dhalanaysa laakiin adiga Soomaaliga inaad soo agmarto ma aynan ogoleen waxaa jiray ciidan waaga goday lagu tababarayay oo ilaa 400 ahaayo waagi waxay u bixiyeen Ogaden Raskes oo goday madax u ahayd oo marka ay naxariista Allah siiyay niman dhinto Bashiir iyo Axmed Cagooli ay joogeen lagu aasaasay oo joogay hubkii waa laga tiriyay wadnimaka hubka la siiyay waa loo diiday because waxyaalaha yani qofka Soomaaliga inuu ogaado kuwa hadda Ethiopia nahay waa kuwa aan waxba ogeyn de arintaasi marka aan dib ugu soo noqday markii ay dhacday Tigreeg waxay isku dayeen inay ONLF ay ka hortagaan oo embryonic stage inta aynan meel fog gaarin inay qabtaan maadaama ay arkeen barnaamijka iyo qorshaha ku socota iyo mintidnimada ciidankii gargaan heshiiska marka waaga hore idin sheegaya yaa wuxuu ahaa waxa lagu heshiiyay qolo walba ciidankeeda iyo aagu jooga in iyaga lagu ixtiraamo laba magaalooyinka waaweyn maadaama iyagu joogaan meel walba qolo walba xafiiskeeda inaan u yeelan karno ciidan ilaa
25 ilaa 15 inta u dhaxaysa oo ciidan ah oo xafiiska joogtana inaan yeelan karno marka xafiisyada oo NLF oo dhan markii la furaba xafiis walba intaasaan geynaa hubkaasoo aan ama soo aruurino ama dadka ka soo qaadno ama siyaalo kale ku imanayo ciidankii gargo-aan oo halkaa jooga yay markiiba damceen inay cagta mariyaan ilaahay subxaanahu watacaala wax mucjisa ayuu maasha maalinkaa ka dhacay dadku way wada ogyihiin ya dagaalkii iyo Tigreegna waxay u yaqaaneen dagaalkii Motoamisti ama dagaalkii 105 105 baa laga dilay meesha ay ONLFna shan ka shahiiday laana daalimiin bay ahaayeen ciidan adag oo tababaran oo runtii Soomaali burburkeedii baa dhacay ragga maalinka meesha dagaalka galayay rag badani boqolkiiba inta badan waxay ahaayeen ciidamadii burburkii dowladda Soomaaliya dadkeenu ay ku wada jireen ragga WC rag badan ciidan adag baa meesha joogay oo tababaran oo quality sare leh Soomaaliya qaraxeedii iyo burburkeedii iyo rasaasna waa la haystay waa hilfaha loo qaaday halkaas dagaalka ay nagu bilowday maalinka waad ogtihiin inay burburiyaan bay dabceen halkaas ay dilkii ka bilaabeen iyo warjeefkii dagaalkaas waad ogtihiin sababihiisii waxay ku laayeen dad badan xubnihii golaha dhexe markaa aan halkii fadhinay shirkii dagaalkii markuu dhacay aan dee kala hawl gallay 2 xubnood oo golaha dhexe ah ayaa dagaalkaas ku dhimatay oo hogaankii markaa gaashaandhiga Kaafi Yuusuf Cali oo gurmad wada meel dhexday u galeen ay ku qabteen way dileen Maxamed Sheekh Maxamed Iraad oo isaguna u socday mataqaana dhagax buur oo markaa dee uu keelaga galo una ay ahayd halkaas dagaal ka dhacay isagana ay ku dileen Axmed Nuur Sheekh Macalin Cabdullaahi oo isagana ku dhaawaceen halkaa markaan kala joogno iyagiina ay jiq ku tahay yay dib isugu noqdeen Tigreeg waxay garwaaqsadeen inay khaldameen barnaamijkuna inuu sidan u dhicmeyn isku wadin waxay yiraahdeen okay waan ka xunnahay qaladka annaga leh dagaalkiina inay iyagu sababtiisa lahaayeen apologize-na way keeneen halkaasaan haddana dib u wada ambaqaad Tigreeg waxay dabceen marka qorshihii jaartarka iyo dowladda samaynta ah qorshe ogaadaya kaliya kuwa jahal ma ahayna qorshe waxay ahayd aasaaskiisa Eritrea iska lahayd looguna talagalay inay Eritrea ku xorowdo marka waxba mayna ka bedeli karin mayna joojin karin laakiin waxay isku dayeen deegaanka Soomaalida qorshahaas inuusan ka fulin oo wax alla wixii facilities ah dhaqaale badan baa World Bank European Unionka Mareykanka dhaqaale badan oo doorashada in lagu qabto oo deegaanada iyo qowmiyaadka loogu talagalay oo dhan way naga joojiyeen waxaa kaloo bilaabeen inay yidhaahdaan okay oo maadaama arkeen aan ku burburino markaas reer walba reer keenso urur 16 urur oo ilmo hebel ah oo wada hebel ah oo nooc walba leh ayaa markaa ay sameeyeen si ay ONLF ugula dagaalamaan dadku kolley wacyigiisu uu ka fiicnaa sidaa dad soo jabay bay ahaayeen soo noqodkii bay ahaayeen Soomaalida waxay nin ka xiiriya kii holholi waan kala aqaanaa waxaa dhacday isagoo wax walba loo diidaa doorashadii la galay doorashadii 87 ayay marka ONLF ku guuleysatay baarlamaanka loo tartamayay meesha la sameeyay hoosana wuxuu ahaa 110 xubnood buu marka they already 90 iyo something bay ONLF yeelatay 90 ma yeelatay waxba mayn uga baahnayn arrintaasi markay dhacday waxaa jirtay in la yiri markaa hal la sameeyo dowladdii hal la dhiso caasimadiina hal la sameeyo Sheekh Ibraahim wuu maqnaa gargaan iyo xaruntaan joognay gudoomiyihii kusimaa aan ahaa gudoomiye ku-xigeenkiina waan ahaa shir baan halkaa xubnihii golaha dhexe isugu yeedhnay marka waxaan isla qaadanay cidda aan gudoomiye ka dhigayno ee baarlamaanka soo gashay inta baarlamaan ku jirto baana laga soo saarayay iyo
caasimadda meeshaan ka dhigayno waxaan nidhi alright waan isla garanay ciddaan ka dhigayno guddoomiyaha waxaan u qaadanay inaan ka dhigno naxariis janna hala siiya cabdullaahi maxamed sacdi oo muasasiintiina kamid ahaa markaa raggii meesha soo galayna inuu xagga cadowga iyo nooca inuu kolley ugu fogya aan yar dareemaynay waxaa kaloo mana aanan muhiimo siinin oo shirka baarlamaanka markii hore laysu sharaxayay waxaan isku boorinay in aan kaadarka mooyeen xubnaha figarka eh waaweyn ee ONLF hogaaminteeda iyo golaheeda dhexe inuusan gelin baan marka hore u qaadanay qorshe oo maadaama waxyaalo badan iska jiraan haddii hogaamintu ay ku milanto oo waxyaalahaas ay dhacaan sidii markii dambeba dhacday xubnihii nagaga milmay ay in badan saameyn ku yeelatay boqolkiiba intoodii badnayd ayba mataqaanaa lagu waayi doonaba inayna nagu dhicin marka hore aan kasii tababarsanay xataa qaarka golaha dhexa ah ee galay baarlamaankaasi waxay ku galeen go-aan iyaga keligooda ee go-aan jabhadeed kumayna gelin wax ku kale mayna lahayn sidaa awgeed waxaa cabdullaahi baan isla garanay waxaan idhi caasimadda waa adduunka dadku waxay noogeyn bay badan bay ka sheekeeyaan waxaan idhi kow waxaan odhanaynaa caasimadda koobaad optionka koobaad waxaan qaadanaynaa Dirdhabo hore Ethiopia diidi doonta tabta umaan lahayn may ogolaanayaan laakiin ummadda Soomaaliyeed iyo dadka walaalaheena Soomaaliyeed si aan ugu qancino inagu waxaan la tagaynaa Dirdhabo waa magaalo Soomaaliyeed waa magaalooyinka ugu waaweyn magaalooyinkeena waana sida way diidi doonaan okay mar hadday diidaan waxaan u eegaynaa marka wadanka centerkiisa meelaha ugu centersan waxaan qaadanaynaa meel isu keeni karta dadkaas meel hadhowta accommodate gareyn karta oo biyaha iyo dhulka iyo baadka iyo wax walba ku filan karta waxaan qaadanay markaa goday sidii baa dhacday baarlamaankii Dirdhabo ku shiray horta shirkiisii ugu horeeyey waxay soo qaadeen in isku raaceen in Dirdhabo laga dhigo waxaa markaa prime minister ahaa madaxweyne Sinaawi ahaa prime ministerna nin Tamireed Line la oran jiro Amxaar ahaa ayaa waxaa qabqabla ahaa oo aad meesha qabqabla uga ahaa nin dhinto Cabdimajiid la oran jiray Cabdimajiid iyo oo markaa caqliga iyaga wada laftiisa ahaa waxyaalo badanna ay mataqaanaa kulley sabab farta lagu fiiqayay inuu sabab u ahaa Tigreega laftoodu markii dambe eedooyin badan ay u sheegeen oo lugooyo badan inuu geystay ay ku tilmaami jireen waxaa dhacday markaa labadii ordiisa timid waxay dhaheen Dirdhabo la aqbali maayo waabana state city way laba magaalo yidhahdeen waa state city oo waxyaalaha qowmiyaadka oo dhanba ka madax banaan oo Addis Ababa iyo Dirdhabo way yidhahdeen Addis Ababa caasimadii bay ahayd Dirdhabona waa Soomaali ka eri baa loo yeelayaa iyo kolley cidda degan unbaa loo yeelayaa maxaa yeelay Dirdhabo Maqale iyo Bahradaar iyo kama muhiimsana mataqaanaa magaalooyinkaas kamana ayna muhiimsanaateen kamana haddii laga dhigaye ujeedo gaar ayay iyada lafteed ku lahayd sidii baan goday marka shirki lagu qaatay goday baa sidii dowladda lagu dhisay okay barnaamijkaasi marka uu istaagay Tigreegu waxay sameeyeen inay xoojiyaan laba shay baa marka waxay arkeen inay ku khasaareen oo aad uga xumaadeen 16 xisbi ee ay wax walba kale ugu dadaalayeen ee ONLF inay la dagaalamaan isku ogaayeen oo doorashadii baarlamaanka waxba ka waayay waa kow oo ONLF ku guuleysatay ONLF oo ay facility-gii iyo wax kastoo wax lagu qabto oo dhan u diideen oo weli sii socota oo hawsheedii sii xoogeysanayso labadaasiba laba dhibaato oo marka soo wajahay bay ku noqdeen marka waxay bilaabeen inay runtii dagaal toos u bilaabaan ay curyaamiyaan marka dowladdii dhisantay inay dhaqaaqdo ay u diidaan inay u diidaan ilaa ku naxariista Cabdullaahi Maxamed Sacdi ayaanba khudbo aqriyo waa laydinku wareejiyey hawshi baa lagu yiri
هذا الكويل وكل دتك ودوغا وحول ورمحان الورجي كرسي يا ميس مرن بان الورجي وحنا الورجي مجر على كل حال سوى أرنتها هالكا مريسو وحي طبعا مركا قوان صدين إننا وحبان قوان صدين يقولون وحبان قوان صدين يقول وحي قوان صدين oo aan laf iyo dawladdan iyo habka ku sii wata haday sii dhisanto in aan Tigray wax damba waxba faraha ugu jirin oo ay ku baabi'iyaan inta ayna heerada gaadhin annana go'aan baynu gaadhnay go'aankan gaadhnay wuxuu ahaa in muddada loogu talagalay ku meel gaadhka in aan aftidii xaqiijino aftidii inaan xaqiijino ayaa go'aan naga inoo noqotay labadaas go'aan baan marka isla garab galnay si ay u baabi'iso iyagu laba shay bay sameeyeen waxay bilaabeen inay wareegto dalkay ku xukumaan oo kulmo wareegto soo saaraan oo xeerkii iyo jaartarkii ku meel gaadhka iyo wixii la isla aqbalay ay ka baxaan iyo iyaga oo abaabulay in la sameeyo wax la yidhaahdo mataqaanaa constitution ay ku magacaabeen constitutionka national constitution ama xeerka guud ee waddanka muddada gudaheedana si loogu talagalay Eritrea waa tii aftida qaadatay ee iyadu ku dhamaysatay labada qole markaa laga shakisanaa ee arrintan lagala hortagayo dagaalka ku socday ogaadeen iyo Oromo ay ahaayeen waxaa iyaga markaa khoof badan ku hayay oo inagaba sii adka Oromada maxaa yeelay inaga Soomaalina way burbursanayd ciidamadeena iyo asaaskeena kale xagga wasniga siyaasiga iyo mataqaanaa wacyiga kala mooyeen waxaa xoog ciidan haystay markaa Oromada ilaa waxay haysteen baa la yidhahdaa 45,000 oo wax walba ku hubaysan diyaarada mooyeen si markaa arrintii loo sameeyo Oromadii baa loo tagay waxaa la yidhi alright waxaad sameynaysaan ciidamada Ethiopia ee nationalka la sameynayaa hubka keena ma jirto yidhahdeen ciidamada Ethiopia la sameynaya okay nationalka alright proportional aan ku qaybsana marka oo numberkaad ka tihiin iyo numberkaan ka nahay aynu reeshadeeda isku qaybsana arrintaas waa laga diiday waa la khiyaameeyey dowlado badan oo reer galbeedka ah arrintaa ka galay wax la isla ogaa bay ahayd Ethiopia jahaal loo waday markaas waxaa la yidhi may 15,000 baa laydinku daraya marka ciidanka inta kala kala dira hubkana keena hubkii baa laga qaaday 15,000 baa la yidhi xara lagu xareeyey 15,000 ee Oromada ahaa ee ciidanka lagu beeriya loo soo xareeyey habeen ma inta hareeraha laga istaagay marsaas laga daali gam wax nool iyo wax dhintay Allahu ya'lam halkaas Oromada horta cagta lagu mariyay Soomaalida marka waxay tiraahdaa ninkii qeyrkii loo xiirayo adigu soo qoyso adiguna soo qoyso waa aragnaa marka Oromada si loo galay xaaladana waa arkaynaa waxaa dhacday marka inagu wax walba isha ku hayna laba shay baan marka target ka dhiganay kow aftida inaan xaqiijino si aftida loo xaqiijiyana inta ka horeysa aan shacbigeena iyo baarlamaankeena u diyaarino iyaguna inta dagaal kale inagu wadeen oo baarlamaankii bay dhex galeen oo sababihii mataqaanaa Cabdullaahi iyo rididi iyo khilaafka iyo inta dagaal culus bay nagu wadaan laftoodu laakiin dagaalkaas na waxaan inaan iska caabino waa qodobka labaad wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed ee ay ugu talagaleen inay Soomaalina naga hor keenaan ee 22 markaa gaadhay marka ururadii 22 bay gaadheen inaan kasbanay iyagana laftooda intaas oo dhan marka maxaan ku kasban karaynaa inaan istaraatiijiyada aftida xaqiijino waxaan nidhi baarlamaanka marka shir hay isugu yimaado horta waxaa shir aan qabsanay oo NLF ahaan November
1993 bishii November ayaan isugu nimid Gargoan. Shirka markaan isugu nimid Gargoan waxaa la yidhi alright Tigray waan aragnaa way ka baxeen jaartarkii afti inaynu geyno oo dagaal dhaco iyo Tigray constitutionka uu wato ee dambe ee xaqiijinaya ogaadayay inay part of Ethiopia tahay inaan ogolaano oo aan la saxiixo labadaas ayna hortaala waxaan dooranay markaa inaan jaartarkii xaqiijino abidna inta ONLF hal qof uu adduunka korkiisa ku nool yahayna ayna ONLF saxiixin ogaadayay Ethiopia ka mid ah aad baa howlo badan baa dhacay runtii rag baa maalinka yidhi dagaal baa dhacaya marka anigu waan iska baxay way jirta rag baa hashkaday qaar baa dabadu jeexantay qaar ba wax badan baa dhacay laakiin waa ku adkaysanay alxamdulilah hebel iyo hebel bay ahaayeen odhan maayo laakiin rag adag baa ku adkaystay oo diiday oo yidhi waa maanta maalin taariikhi ah boqolaalka sano intaasoo sano qadiyada ogaadeenya een weligeed beejkeedu isbedelin maanta ONLF iyo mas-uuliyaddeeda intaan qaadnay inaan nahna Ethiopia ka mid tahay xaraam calayna lagama yaabana xaqiiqatan xataa hadday ONLF ogolaato shacbigu mar hadduusan ogolaanin maba socon karteenoo valid maba noqoteen laakiin magaca taariikhda ayaybana weli soo marin qof reer ogaadaya oo intuu soo istaagay yidhaahdo Ethiopian baan nahay ama ogaadaya Ethiopia ka mid ah taas marka arrintaas si aynu marka u xaqiijino waxaan idhi waa inaan samayno ole laga soo bilaabo dawanle dhanka ugu ereeye ilaa halka ugu dambeeya jarati markaa iyo ilaa liibaan inaan wafti marino aynu dadka marka kaga dhaadhicinayno campaignkaasaan samayno campaignka markaan samayno waa markuu Tigray waalanayo waa fahmayaan arrinta markay halkaa marayso oo Tigrayga ay arkeen halkaan u sii jeedno iyo damcayn ay khayaamo sameeyaan waxay yidhaahdeen niman yahow aan wada hadallo Tigray iyo ONLF aan wada hadallo waxba kama qabnaan diyaar baana marka iyo wax khayaamay ay islaayeen wafti baa la soo diray waftigii ani Cabdiraxmaan Sheekh Wahdi ku jirno gudoomiye waftigaana goday baan nimid waxay ahayd intay goday wafti Tigrayna loo soo diro dayar la soo diro inaan adsaba ku wada shirino waxaan isla gaadno kolkay ogaadeen xaaladii yay wixii oo dhan bedeleen xasan jiro oo markaa gudoomiyahaba u yeedheen annaguna waxaan nidhi shirka baarlamaankana ha lagu qabto godayna marka waxaan doonayna in aftidii shirka lagaga dhawaaqo si ay arrintaa u baajiyaan marka xasan jire u yeedheen waxay yidhaahdeen shirka yaa laguma qaban karo goday waa in jigjiga lagu qabtaa waa kow go-aankii iyo ballankaan isku ogeyna way ka baxeen arrintaa markaan ogaanay kolley waa fahamnay aduu xaaladaas xaaladay ahayd waxyaalo badan baa ku dhex jiray aan doonayay inaan hadda kusi leexleexanin go-aan baan marka ONLF qaadanay xubnihii baarlamaanka waan halkaa ku shirinay waxaa la yidhi guddoomiyihii waxaa lagu khasbay baarlamaanka madaxweynihii inuu jigjiga shirku la ka dhaco isagiina adsabuu jiraa godayna kusoo noqon maayo marka maxaa tala ah alright waa fahamnay waxaan nidhi waxay doonayaan waa aragnaa waxay doonayaan inaan diidno xubnaha aan idhahno tegi maysaan oo dee ONLF baa xukuntay ay tiraa tegi maysaan ONLF xukumin iyo waxaasina ay meelaha iska tagaan sidaa awgeed inta tagtayna shir koorama ma noqon karto intii hadhayna kooram ma noqonaysa guddoomihiiba iyo madaxweynihi hadduu ka maqan yahay sida awal shirku ku baaqday rabaan soo ma ha alright waa fahmaynaa
oo jigjiga yaale soo jigjiga nagmali ya whatever ama jigjiga ha lagu qabto ama ha lagu qabto mataqaanaa goday ama meel kale ha lagu qabto wherever is it shirkaasi waa inuu qabsooma aftiduna soo baxda laba shay baan markaa aan tooganay baarlamaankii iyo xubnihii oo dhammaan aan nidhi baxa ururadii Soomaaliyeed oo dhan oon ugu yeedhno marka iyagan isugu yeedhno aan wafti u darno labadaa qodob aan marka target ka dhiganay iyagu markaa shirkan inuu dhaca ay diidanaayeen waxay dhinac wadaan dagaal iyo layn xubnihii markaan soo saarnay ee nidhi baxa xubnihii baarlamaanka oo socda ayaa waxay soo mareen qabdahare markay habeenkii ka soo baxeen subaxii soo baxayeen habeenkii waa kii guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiiba la dilay waftigii xagga oo dheer ka soo baxayay guddoomiyihii oo NLF halkaas la dilay yarka Cabdullahi Gani halkan goday waa ogtiin oo marka waxay bilaabeen inay waxaa marka reactionka la rabay shirka horti inaan iyadana aan xabad ridno oon ka hor nimaano waxaan idhi may xabadna ka ridi mayno aftidaasoon dhicin far dhaqaajin mayno baarlamaankii taga goday shirkiina ha dhaco ururadii Soomaalida aan isugu yeedhnay waxaan idhi waxaad yeelaysaan Soomaaliyay maanta Ethiopia waxay naga rabto waad aragtaa war inagu waxaan doonnaa in isku qabnee inaan Ethiopia ka xorowno yeena dan ahayn okay damba inoo wada tahay maxaan hadda samaynaa tisay ku dhici lahay hal urur baan noqonaynaa gerigeennaba baarlamaankeennan intaan u yeedhnay kulligiin aan u wada yeedhnay hal urur baan noqonaynaa ururkaana guddoomiyaha madaxweynaha maamulka oo xasan jira ayaan guddoomiye uga dhigaynaa halkaasaana wada aadaynaa ururada Soomaaliya saasaa isku wada waafaqnay saasaa waxaa ku dhacday marka shirkii jigjiga xubnihii 110 ahaa ee baarlamaanka 109 baa timid hal nin baa maqnaaday dadku taariikhda waxbay ka khalkhaldaan boqolkii intaasay ahayd iyo intaa waxbay boqolkiiba boqol gacantaag bay ahayd hal qof muusan diidin ku jeclaa iyo ku necbaa midna dadka ishu markaa haysay si kale loo arkayay waxaa kamid ahaa nin la odhan jiray ii daahir oo meesha u dhiibayeen oo markaa cabdimajiid iyo ay balaaya lugta ku yar haysay waryaha gacanta ama taag ama dhig baa la yidhi dhexdu yar joojiye baa la yidhahdaa kor buu taagay hal qof 109 xubin ee codka bixisay waxay isku raaceen waa February 25keedii ya 15 February I think so ha February 93 94 cafwan waxay isku raaceen dhammaantood in ogaadey afti laga qaado aftida marka in la qaado iyo intaan hawsheeda ku jirno dagaalada ay Tigreegu nagu hayaan ee doonayaan arrintaas inayna dhicin laa xad male waa guddoomiye laynta waxaa kamid ah guddoomiyihii jabhadda oo dhagax buur tagay oo wardheer u baxay intaan aftidii xagga la gaadima weerar laga dabageeyey oo halkaa lagu weeraray waa kaad ogtihiin more than dad 100 ku dhowaa meeshaa ku dhintay oo arrintaas saraadeed waxaasoo dhanna waxay ahayd markaa kulli markaa soo wada baxnay waxaan nidhi aftidu Tigray iyagaa xarunteena soo weerari doona aftidaasoon soo bixin xataa haddayna soo weeraraynan waan u dabamarayna meesha kale ku dabamarayna lakin aftidaas inay soo dhaxan aftidaasaa soo baxday Tigray waxay maleegayeen oo dhan waxay qaalo waayeen waxay Soomaali qaybay yidhaahdeen oo dhan oo ay Soomaali oo dhan u yeedhnayaan oo hadda marka Soomaali oo dhan soo ku shirsan tahay inay aftidii inta ay la dagaalamayeen ay ogaadeen reer ogaadeen ay ONLF xaqiijiso oo ay soo baxdo Tigray waxay ku noqotay waxay liqi waayeen sida awgeed maalinkaasay go'aan gaadheen waxaa jirtay muddadaas aan idin sheegaya 91kii ilaa 94kii Tigray kolka hore waxay isku dayeen
dhammaan waxa alla waxa hubka culusa iyo taangiyaalka iyo culus oo dhan waa la qaaday Tigray baa la isugu aruuriyay maxaa yeelay in cid ku soo kacday ka yaabayeen maalinkaasay Tigray waxay bilaabeen marka inay taangiyaashi soo celiyaan oo magaalooyinka weyn waardiye laga wada qabto weerarkiina ay sameeyaan dadka marka waxaan insha Allah aan caaw ku joojinayaa dagaalku meeshaas horta ayuu ku bilowday Tigray markaasay go'aansadeen inay ONLF weeraraan waxay bilaabeen marka intayna ONLF weerarin inay qolihii itixaadka oo saldhig ku lahaa meesha la yiraahdo Garsley korkeeda xangay meel la yiraahdo ku lahaa inay weeraraan ciidan xoog badan bay ahaayeen runtii oo fara badan waxay ugu tala galeen inay maartay muddo qaadanayso horta oo kuwa xaliyaan waxayba ku xalisantay ma taqaanaa wax less than asbuuc aw dhowr saddex cishaan marinaya dagaalkaas inay maartay ku kala xaliyeen qolaasi marka kolkay ogaadeen si aad u degdegsan oo aad moodid inayna markii dambe qorshahooda ay ku tala galeen ka soo hormariyeen ayaa marka waxay bilaabeen inay yiraahdeen aan raacino ONLF oo marka xaruntii jabhadda waddanka xoreynta ogaadaya oo garigo aan ahayd oo marka gudoonkii iyo gudoomiyihii iyo wax walba iyo halka la fadhiyo inay soo weeraraan isaga oo marka ay xataa jiraan xafiisyadii iyo xubnihii meel kale jira wixii oo dhan aan cid ma taqaanaa iyo far la dhaqaajiyay mid uusan jirin ayaa weerarkaas soo qaadeen bishii April 20keedii garigo-aan weerarka lagu soo qaaday ayuu dagaalka maanta socdaa uu horta ka soo bilaabmay xabadiisa rasmiga tii judhiga ahayd iyo dadkii la leeyahay iyo dagaalkeedii iyo diidmadeedii iyo afticelinteedii muddadaas iyo waqtigeeda ayay soo ahayd marka maanta halkaasaan ku joojinaynaa haddii alla idmo maalinkaa la soo weeraray garigo-aan see wax u dhaceen xaaladdu sidee bay ahayd maxaa ku xigay halkeesa la maray halkaasaan ku joojinayaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu